بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. shirgudoonka mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada, xogayaha agaasimayaasha iyo howlwadeennada golaha iyo bahda warbaahintaba dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. subax wanaagsan mudanayaal, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa in dardaarankeenii shalay tixgelin aad siiseen waana ku mahadsantihiin. xilli horena ay shaqadu inoo bilaabmayso, kooramkuna uu inoo fiican yahay oo saaka 9:40 aan ku furayno. mudanayaal, saaka waxaynu u ballansannahay laba shaqo. ta koowaad inaan horta maxkamaddii sare hawsheedii iska dhammayno, kadibna aan u gudubno qodobkii aan shalay qodobkan ka soo hormarayna ee xeerarka insha Allah billahi kariim, oo xeerkii ugu horreeyay xeerarka inoo yaalla golaha aan maanta aan muddayno oo aan qaybino. mudanayaal, saaka saynu u ballansanayn maxkamaddii sare ayay tahay hawsheedii inaynu soo gebagabayno oo golaha hor imanaysa in xasaanaddii la siiyo si ay shaqadii u gudagalaan. waxaa yimi markaa firaaq yimi wuxuu yahay maxkamaddii sare ee dhaarin jirtay xubnaha dowladda ee sarsare ayaa meeshii ka baxday 15 August sanadkii la soo dhaafay baa waqtigeedii dhammaaday. dhaar dastuuriya baa jirta oo uu ka warramayo qodobka 132 ee dastuurka dowladda Puntland, wuxuuna u dhigan yahay sidan: qof kasta oo xil sare ka qabanaya dowladda Puntland, maxkamadda sare ayaa u dhaarinaysa xilka loo dhiibay inta uusan xilka qaban, wuxuuna marayaa dhaartuna waa dhaartii dastuurka isla garanayno. sidaa daraaddeed, mar hadday caynkaa tahay, xeerarka iyo sharcigu golaha sameeyuu ka bilaabmaa. waxaynu u baahannay go'aan gole inaan isula qaadanno in baarlamaanku dhaariyo oo mudanayaasha hortooda lagu dhaariyo maxkamadda sare si ay wixii sharci u noqdaan. go'aan golaynu markaa u baahannay mudanayaal inaan isla qaadanno. wixii go'aan gole galaana dee waad garanaysaan, go'aanka gole waa sharci iyo siduu u culus yahay. marka codayntii baynu gudbaynaa si ay shaqada, haddii kale shaqadii ma geli karno. mudanayaal, in xubnaha maxkamadda sare ee magacaaban golaha hortiisa lagu dhaariyo oo baarlamaanku dhaariyo yaa gol. yaa diiday? yaa ka aamusay? mudanayaal, codayntii waxay u dhacday sidatan: kooramku waa 50. in xubnaha maxkamadda sare ee magacaaban baarlamaanku uu dhaariyo, ogol waa 44, diidma waa 1 mudane, aamus waa 5 mudane. sidaa daraaddeed sidaas ayay ansax ku tahay oo go'aanka goluhu uu ansax ku yahay in xubnaha maxkamadda sare ee magacaaban baarlamaanku uu hor dhaariyo mudanayaasha hortoodana lagu dhaariyo. waan mahadsantiin mudanayaal. waxa aan hawsha u wakiilanaynaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada inuu halkan soo fadhiisto oo uu dhaariyo isagoo maxkamadda sare, isagoo ku dhaarinaya qodobka dastuuriga ah ee 132. xildhibaan cabdilaahi siciid soo fadhiiso. xildhibaan. xogayaha iyo agaasimaha maamuuska waxaan ka codsanayaa in la soo daayo xubnihii maxkamadda sare ee magacoonaa si shaqada intaynoo dhiman aan u gudagalno. mudanayaal, sida aad aragtaan waxaa horteenna fadhiya 7 xubnood oo magacaaban oo ah xubnaha maxkamadda sare: gudoomiye ku-xigeen, 3 garsoore iyo 2 garsoore oo kayda. waxaa horteeda taal digreeto madaxweyne ku taariikhaysan 26 Oktoobar, ujeeddadeeduna ay tahay xasaanad siinta xubnaha maxkamadda sare ee dowladda Puntland. waxaan ka codsanayaa xogayaha soo gudbintan oo digreeto madaxweynaha inuu golaha hortiisa ka aqriyo. ku soo dhawo xogay. mudane gudoomiye, mudanayaal, warqadda tirsigeedu yahay 182/2022 Garoowe Oktoobar 26, 2022. gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland, ujeedo xasaanad siin xubnaha maxkamadda sare dowladda Puntland. mudane gudoomiye,
waxaan halkan kugu soo gudbinayaa xasaanad siinta xubnaha maxkamadda sare dowladda puntland ee u baahan in la siiyo xasaanadda. magacyada: kow, xasan yuusuf nuur, guddoomiye; axmed sheekh cumar xasan, guddoomiye ku-xigeen; siciid axmed faarax, garsoore; 4, maxamuud cawad cumar, garsoore; 5, siciid maxamuud maxamed, garsoore; 6, maxamed cabdirasaaq ow cilmi, garsoore kayd ah; 7, aadan axmed maxamed, garsoore kayd ah. haddaba si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo, waxaan si xushmad iyo qadarin leh golaha wakiilada uga codsanayaa in la siiyo xasaanadda. wada shaqayn wacan. siciid cabdulaahi deni, madaxweynaha dowladda puntland. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. mahadsanid xogaye. mudanayaasha magacaaban ee maxkamadda sare, soo dhowaada, ku soo dhowaada kalfadhigii 11aad, fadhigiisii 6aad ee golaha wakiilada dowladda puntland. waad halkan u joogtaan sida madaxweynuhu soo codsaday inaad heshaan xasaanad si aad u gudataan waajibaadkiina dastuuriga. mudanayaal, sida uu qabo qodobka 132 ee dastuurka dowladda puntland ee ka warramaya dhaarta dastuuriga ah, wuxuu ina farayaa sida tan: qof kasta oo xil sare ka qabanaya dowladda puntland, maxkamadda sare ayaa u dhaarinaysa xilka loo dhiibay inta uusan xilka qaban, wuxuuna marayaa dhaartan. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan ku dhaqmo diinta islaamka, dastuurka dalka puntland iyo qawaaniintiisa dhowro, xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego. mudanayaasha magacaaban ee maxkamadda sare, mudanayaal, halkaa waxaa soo baxay firaaq. maxkamaddii dastuuriga ahayd ee idin dhaarin lahayd 15kii oks sanadkii lasoo dhaafay ayay u dhammaaday mandatekii ay haysteen inay ku shaqeeyaan. sidaa daraaddeed goluhu saaka wuxuu qaatay go'aan gole, waayo mar haddii firaaqaas dastuuriga yimi waxaa loo noqonayaa goluhuna waa isagaa xeerarka iyo sharciyada dalku uu ku shaqeeyo sameeya oo ay ka soo fulaan. go'aan gole ayaa goluhu wuxuu ku qaatay in baarlamaanka hortiisa laydinku dhaariyo, baarlamaankuna idin dhaariyo. sidaa daraaddeed waxaa maraysaan dhaarta. marka aad dhaarataan kadib ayaa xasaanaddii laydin siinaya. waxaad ka codsanaya inaad hoos soo degtaan si laydin dhaariyo. waxaa idin dhaarinaya shiikha golaha, xildhibaan cabdilaahi siciid axmed. xildhibaan ku soo dhowow. waxaad ku dhaarinaysaa dhaarta dastuuriga qodobka 132 baad u kala bixinaysaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhowaada. bismillah. kitaabka gacanta waa ku haysan dhammaantiin baan filayaa. sida guddoomiyuhu sheegay, dhaarta dastuuriga ah qof kastoo xil ka qabanaya dowladda puntland lagu dhaariyo wuxuu u qorayaa sida tan. waan akhriyayaa, waad iga daba akhriyaysaa insha allahu tacaala. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dalka puntland iyo qawaaniintiisa dhowro, xilka la ii idmadayna daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego. ilaahay ha idinla garab galo. mudanayaal, haddana waxaan u gudbaynaa insha allah bismillahi kariim codayntii ha la isu diyaariyo. mudanayaal, codayntu waxay u dhici doontaa sida tan: ogol, diidmo iyo aamus. mudanayaal, xubnaha magacyadoodu ay kala yihiin xasan yuusuf nuur, guddoomiye; axmed sheekh cumar xasan, guddoomiye ku-xigeen; siciid axmed faarax, garsoore; maxamuud cawed cumar, garsoore; siciid maxamuud maxamed, garsoore; maxamed cabdirasaaq ow cilmi, garsoore kayda; aadan axmed maxamed, garsoore kayda. ee magacaaban yaa ogol inaan xasaanadda siino?
yaa diiday yaa ka aamusay mudanayaal kooramku waa 54 codayntii xubnaha maxkamadda sare ee magacaaban waxay u dhacday sidatan ogol waa 53 diidmo waa eber aamus waa hal mudane 54kii codsaasi ku dhayin sidaa daraadeed waxaan qirayaa xubnihii magacaabnaa ee maxkamadda sare ee uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland inay sida ansax ku yihiin golhuna uu ku ogolaaday in la siiyo xasanad ay ku shaqeeyaan mudane gudoomiye xasan yuusuf nuur mudane gudoomiye ku xigeen axmed sheekh cumar xasan iyo dhammaan xubnaha garsoorayaasha kaydka ah iyo garsoorayaasha kale ee kala ah Saciid Axmed Faarax garsoore Maxamuud عواد عمر قرصورة سعيد محمد قرصورة محمد عبد الرزاق أو علمي قرصورة كيدا آذن أحمد محمد قرصورة كيرا مدنيال وايدين هم بلينيا وحنقريا إناتهين ما أنت لقى بلاوة صعدو أضحي اللي أنا تاجنتهاي إناتهين حبنيه محكمة السرة الشقين لها مدنيال مدن قدومية وحنقول الدار ميا إنادي لاليستو دستورك دولة بودلان adiga garsoorayaasha kaleba iyo xeerarka kale ee dalku leeyahay shuruucda la dhowro shaqo kasta oo aad dhigaysaan aad goon uga dhigtaan dastuurka dawladda Puntland iyo shariicada islaamka iyo xeerarka dalku leeyahay mudane gudoomiye ku soo dhawaada garsoorka Puntland oo aad hogaamin doonto adigu mudaba garsoorka waxa ka jiray cabashooyinkaas iyo hawlaha isna kullee waa hawlo ku yaal insha Allah ibn kariim baarlamaankana cabashooyin badan baa loo soo gudbiyay inaad hawlahaas aad wax badan ka qaban doonto ayaan ka rajaynin doonaa maadaama aan halkan ka qirayo ay aragnimadaada shaqo iyo hufnaantaadaba in adiga iyo xubnaha kale baad hawsha gudan doontaan baarlamaanku isagoo isku duuban anoo ku hadlaya afkii golaha wakiilada waa idin hambaleynaynaa waxaan ku siinayaa gudoomiye kelmad si aad kelmadda hadnaqa aad adigoo ku metelaya afka xubnaha kale ee garsoorayaasha ee kula socda inaad ku soo dhawo gudoomiye bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa gudoomiye iyo dhammaan gudoonka iyo golaha wakiilada xildhibaanada golaha wakiilada waxaan idinkaga mahad celinaynaa kalsoonida shaqo oo xasaanadu ku dheehan tahay inaad na siiseen mahad baan idinkaga celinaynaa dadkayana hadda la magacaabay keligood markaan runta kuu sheego ma fulin karaan guusha la rabo in laga gaarana ma gaadhsiin karaan keligood haddii aan si dhaba u wada hadlayn annaga waxaad naga taqaanaan dadaal inaan dadaalno iyo annaga garsoor haddaan nahay maxay tahay inteenno maxaa iina oo nala ka sheegaa maxay tahay waxaa nala ka sheegaa ceebaha aan leenahay maxay yihiin waxba iskumaanu qarin waxyaalo badan baa jira laaluush gobolaysi hadda waxaasoo dhan sidii loo tirtira ma meel kastay ka jiraan mase garsoorka u gaarta hadday xataa meel kale ka jiraan garsoorka inay soo dhex gasho ma ah waxaan kaa ballan qaadayaa adiga guddoomiye ahaan iyo dhammaan guddoonka iyo xubnaha ama golaha wakiilada inaanu samayno wax alla wixii dadaal ah oo suurtagal ah oo aanu samayn karno mar kastana aan weydiisano iskaashi dhinacyo badana ama hay-adda fulinta ha noqoto idinka wixii markaa idinka khuseeya ha noqoto waxaan iyadana ka digaynaa in aad nagu gacan siisaan faragelinta garsoorka ka jirta oo ah hadda kiiskii keligiis maaha kiisaska la keenaya madani ha noqoto ciqaab ha noqoto idaari ha noqoto kiis keligii la keeni jiray oo la dacwoonayaa la arki jiray kiisasku waxay ku imaanayaan baan isku soo qaadqaadnay
kiisas lagu wada lamaan yahay. mahadsanid gudoomiye xasan yuusuf nuur anoo ku hadlaya afka baarlamaanka in baarlamaanku si buuxda kula shaqeeyo ilaahay idinkii garab siino wixii inta nagaga aadan annaga shaqadayada aan qurxinno garabkiina istaagno mudane gudoomiye miisaaniyaddii baa iyana hadda imanaysa October fursad baa haysataan dii miisaaniyaddiina iyo budgetkiina wax ka khaldan yahay haddii ay maanta idin dhaafto way adagtahay inaad fursad heshaan October-ta 2023 ayuunbay noqonaysaa oo muddaxileedka hadda xukuumadeen dowladeennan oo dhan uu gabagabaya golayaasha dowladda uu gabagabayay marka hadda fursad haysataan ka faa'iideysta haddii halkaa wax ka dhiman yihiin annaguna si buuxda baan idinkala shaqaynaynaa arrintaa wixii ku saabsan mudane gudoomiye baarlamaanku waa hay-addii xeerdejinta xeerarka iyo sharciyadan aan maxkamaduhu ku shaqaynayaan iyo hay-adaha kale dowladduba waa halka ay saldhigga u ka soo baxaan waxaan kaa ballan qaadaynaa wax hufan inay marka horeba annaga naga soo fulaan wixii hay-adaha dowladda iyo dadka baasi aad sheegaysid ee kiisaska ku wada lamaanna annaga baarlamaan ahaan intii nagaga aadan inaanu cod dheer ku sheegno aanu idinka reebno inana ka daaya maxkamadda shaqadeeda ha loo daayo idinka laakiin waxa idinka rabaa markay arrimahaas oo kale idinku yimaadaan inaad baarlamaanka la soo wadaagtaan aad soo gudbisaan aad tiraadaan shaqadii ciddaas ayaanu ka wadi kari laanahay si aan markaa garab idin siino waxa annaga hadda tusaale noogu filan in baarlamaanku sharciga ilaalinayo aanu dhinacba u dhaafayn maxkamaddii sare muddaxileedkeedii sanad ka hor buu dhammaaday maxkamad sare la soo magacaabay baarlamaanku wuu diiday go'aan golaha haddana lagu diiday annaga xildhibaan baa naga dhintay xildhibaankii naga dhintay beddelkiisii 6 bilood ka hor baa naloo keenay mudane gudoomiye cid kaaga aqoon badan ma jirto sharciga qodobka 132 ee daasta dastuuriga ah ayaan meel allaaliya meel aanu ka dhaafno baan weynay maxkamad sare loo baahday oo xildhibaankii dhaarisa maxkamad degmana uma aanan yeedhin mid rafcaan uma aanan yeedhin oo dastuurkii baa diiday oo naga diiday halkaas waxa kaaga cad rito inuu xildhibaankii maxkamaddii waa diyaar inaad garsoore noo soo dirtaan garsoorihii baarlamaanka hortiisa ku dhaariyo annaga mar kasta waajibaadkayaga sidaas ayaanu u gudan doonaa idinkana ka maxkamad sare ahaan waxaa idinka rabaa gudoomiye in aad sharciga cid kasta oo ku xadgudubtaa tilmaantaan oo tiraadaan sidan sax ma sharciga baalmarsan tahay annaguna taasaan kala shaqeynaa waa maasantiin waan idin hambaleynayaa aad iyo aad baan idinku hambaleynayaa waxa isna goob joog inalaha maanta inala joogay marshafta ka mid ahaa xeeraaliyay guud ee dowladda Puntland mudane maxamed Ismaan soo dhawow mudane adiguna mudanayaal maxkamadda sare sida aan ilaa intii la magacaabay shacabkuna waa soo dhaweeyay baarlamaankuna waa soo dhaweeyay runtii kalsoonida gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo garsoorayaashaba lagu qabo oo ayaa waxay ahayd hay cid kasta waxay leeyahay alla ilaahay waa la asiibay garsoorka maanta la soo magacaabay waa garsoorkii saxda ahaa ee dhibaatada garsoorka ka jirta qofkii ugu habboonaa ee ka shaqayn lahaana waxaa loo arkaa inuu yahay gudoomiye xasan yuusuf nuur kalsoonida idinkuna ha dhumanina taasaan naga dardaarana baarlamaanku kalsooni buu idinku qabaa shacabkuna kalsooni buu idinku qabaa kalsoonida ka shaqeeya mudanayaal maanta waxaa halkan ku dhaarateen baarlamaanka hortiisii kalsoonina baarlamaankii baan siiyey waxa aad shaqadiina ku waayi kartaan oo kaliya codka baarlamaanka waxa idinkula dardaarmaynaa sidaa daraadeed maadaama shaqadiina ku waayi kartaan kaliya codka baarlamaanka inaydan cidna kaga haybadaysan idinkoo dastuurka iyo shariicada islaamka iyo lillaahida aad ku dhaarateen iyo kitaabka marteen maraya inaa waajibaadkiina si wafan gudataan waana maasantihiin oo idin hambaleynayaa mar kale mudane gudoomiye adiga iyo garsoorayaasha kale kula socday gudoomiye xigeenkuba waa maasantihiin waan idin hambaleynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu